waxaan jecelahay inaan ka hadlo arrinaan horena wax uga taataabtay maantana wixii aan ka hadlayay ay ka dhaceen wixii aan ka digayay ay ka dhaceen baan jecelahay inaan wax ka taataabto meeshaas waxa weeyaan balli diiriye guuleed oo degaan degan yihiin laakiin damac fara badan oo meesha ku xeernaa dabeetana aanu anagu ka digaynay in wax ka bilaabmaan meeshaas markaan asal ahaan dib ugu noqdo waa dhul degaan 70 sannadood muddo laga joogo xukuumaduhu waxay haybad ku yeeshaan oo ay sharaf iyo qiimo iyo karaamaba ku yeeshaan markay tixgeliyaan qoraalada xukuumadaha ka horreeyay ay sameeyaan xukuumadihii ka horreeyay xukuumadda imika meesha joogta halka dhowr gooroo wax ka dhaceen waa lagu wada hadlay qoraalada laga soo saaray degaanimadeeda sharci ah qoraalada laga soo saaray magac dawladeedna way ku socdeen haybadii dawladnimada way wateen maadaama dawladu soo saartay oo xukuumaddu soo saartay mas'uuliyiintan imika kursiga ku fadhida qoraalada ay iyagu sameeyeen kuma fadhiyaan waxay ku fadhiyaan qoraalada dawladaha hoose sameeyeen ama dawladaha ka horreeyay iyagu ay sameeyeen hadday dhacday inay tixgelin waayeen qoraalada hore waxay u muuqanaysaa inay iyaguna si faxaaraana ku fadhiyaan meesha marka dee la eego curfiga caalamka arrintaasi waa arrin aad iyo aad runtii u foolxun dhacdadaa meesha laga sameeyeyna waa dhacda aad u foolxun mana aha dee in mar walba dhacdo uun la yidhaahdo arrintii dawladda way qaldantay dabeetana dib looga noqdo marka dambe ee marka horaa fiican in waxaan laga fiirsado dadkan ciidanka la gelinayaana dad xaq u leh in ciidan la geliyo maaha waa dad dhulkoodii degan wey xoogna kolley lagagama rari karo nin kastoo u tagaa isaga iskaga tegaya waxa muhiimaddu tahay waxa weeyaan dee nabadda dalka in la ilaaliyaabaa dee muhiima laakiin looma jeedo annaga reer ahaanna waxaad mooddaa in barnaamij kale looga dan leeyay facaayishan foosha xun ee mar walba la samaynayo doorashooyinkiibaa aan dib u xusuustaa oo u xibna aadannimada ka baxsan lagu sameeyey ujeeddooyinkii laga lahaa in kastoo la gaadhin waxaa ku xigtay doorashooyinkii degaanka Hargeysa ee lagu dooranayay mas'uuliyiinta hogaaminaysa golaha degaanka Hargeysa oo intii kale inta iska fadhiisatay ay iska doorteen iyadoo wax tixgelin la siinin dadka degaanka kula nool waxay ahayd barnaamij kale oo lagu dayay in lagu kiciyo dadka laakiin dhaguma aan dhigin waxa taa ku xigtay biyaha iyadoo laga hadlayo biyaha magaalada Hargeysa oo si toosana loogu yiri mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan master planka wakaaladda biyaha Hargeysa Axmed Dhagax nooguma jirto kacdoon badal la doonayay laakiin uma aanan jeedin anagu waxaan u aragnaa waxa soo dhan inay sabab u ahaayeen wala lahaa un malaha reerkan oo aad mooday inuu ku yaraado adagii Somaliland hal la bislayo si uu Somaliland uga noqdo mara suurta galaysa inaanu ka noqono laakiin ninka doonaya inuu isagu ka noqdaa isaga banaanka iman doona arrintan maanta laakiin meesha ka dhacdayna kuwaas mid daba socota Somaliland dadku way wada ogyihiin oo dee wax qarsooni ma jiro labada baalba oo laga jaray hartina waxa la ordo iska taga galbeedka Somaliland dadkii ku noolaana sidii Falastiiniyiintii baa la qaxoontigiina lama soo celin karo Somaliland waa la hadlaya ninka wax burburinayna waa la arki doonaa annaguna ma nihiin dad si fudud uga dhaqaaqa dhulka ay leeyihiin laakiin ninka soo doonta ka dhaqaaqi doona arrintaas hadday sii socotana
ku eekaan maysa uun halka ay wax ka dhaceen halkana kabalaan lagaga carari doono waa xaqiiq weyn annagu waxaanu sugnaa inta badan dhiil baanu dadka dhiil nabsiba aanu nidhaahna baanu dadka u kaydinaa dhacdooyinka aan soo sheegay oo dhani dhiilkii way ku dhaceen marka faarax nuur markuu lahaa rag sabaan ka sabaan baan samuun talinayay 9 qodob uu soo qaato 9kii intii badneed way socotay intaydin hadhayna buuxsada marka inta buuxsataana waynu sarki doonaa annagu wanaag baanu mar walba ka talinaynaa haddii loo joogsan waayo laakiin tay doonayaan bay iman doontaa ninkan meesha haystana waxaanu leenahay haddaad sharciga kaa horreeyey diiddo adiguna sharci kuma fadhidid reerkiina haddee meesha u fadhida haddaad reerkiina dhulu doonayso dagaalka soo galo da xaggaa qori ka soo qaado halkana ka talinina ummadda Soomaalilandna waxaanu u sheegaynaa annagu mar walba inaanu nabad diyaar u nahay mar walba annagu nabad diyaar baanu nahay laakiin qojaynta nagu badan waxaan laga doonayaa waxa weeyaan in loo bisleeyo Soomaaliland oo la doonayo in dib loogu celiyo Soomaaliya inaanu annagu nidhaahno Soomaaliland waanu ka noqonnay inta qof laga nooliyana ka noqon mayno waxaan u soo jeedinayaa qolada ciidanka ee meesha la geliyay ee la adeegsaday wasiiradan sidii babqaaga u qayliyay ee lahaa go'aankii baanu jeedinaynaa ninkii wasiirka ee meesha ka hadlayay doorta inuu reerkoodana ka taliyaabay arrinkiisa dhulka waa la wada leeyayba hadalladiisii ka mid ahayd haddii dhulka la wada leeyay maxaa qaxoontiga Ciise loogu diiday inuu dalkoodii yimaado u sheeg reerkiina deeta waxaa leeyahay arrinkaa dib ha looga noqdo deegaankana sidiisa loo daayo haddii taa la diido tala doonayaanu idinla yeeli doonaa taa ku socota maanu idinla qaadan doonaa nin walibana wuxuu ka maalo waa la arki doonaa wanaag baanu doonaynaa nabad baanu doonaynaa haddaanu se weyno waanu naqaanaa si aanu isu difaacno waxaan mar labaad soo jeedinayaa in arrintaasi laga noqdo dadka degaankooda faraha looga qaado ciidamada meesha la geeyayna laga kaxeeyo laga saaro arrintaa waan ka adkaynayaa dadka degaanka kula noole dadka la walaala ah ee marka hore dhexdhexaadinayna aad baan ugu mahadnaqayaa inta imaka nabadgelyo ahaan ku shiraysa burcana waxaan leeyahay wanaagga ka shaqeeya adkaynta nabadgelyada ka shaqeeya nolosha dadkiina ka shaqeeya adkaynta iyo midnimadiina ka shaqeeya Soomaalilandna waxaan ugu baaqayaa haddii dee la doonayo Soomaalilandna dadka qojaynta laga day laguma kordhinayo Cabdullaahi Arab dagaalkiisa xilli lagu kordhin maayo Cabdullaahi Arab dagaalkooda iyo ciidan la dulgeeyo nin walba markuu maalintiisa u dhamaato uu ka soo baxaya riyaalad ku oran jirtay bud baan kaga soo saarayna adiga wax kala lagaaga soo saari dad caga dhigan weydo waxaan ku soo jeedinayaa mas'uuliyad baa lagu dhiibay dal baa lagu aaminay dad baa lagu aaminay wixii lagu aaminay sidii lagu aaminay u dhiib mar labaad waxaan ku baaqayaa arrintaa laga noqdo ciidamadan meesha laga saaro ummadda nabadgelyadeedana laga shaqeeyo ma ayna farwasirinta loo diro leeyahay babqaaga sharci iyo barnaamij iyo dastuur baa dalka ka jira arrimaha gudaha u taliya nabadgelyada dalka haddii wanaag laga doonay maxaa wasiirka arrimaha gudaha loogu diri waayay farsamo kala meesha laga wadaaye dhul reer loo qaadayana ma jiro halka Cabdullaahi Arab degayna maaha kalshaale waa la eedi doonaa wallahi in la eedi waxaan ku soo gabagabeynayaa ummaddu ha ilaaliso nabadeeda ciidamadana dadku waxay meesha u dhigteen oo hubka iyaga ugu dhiibnay inay dalka difaacaan maaha dadkii ay difaacayeen inay inta hubka u qaataan weeraraan waxaaraan weey
كو استعماله أنا حرام بو استعماله iyagana waxaanu leenahay dib uga baxa dadka deegaanka degan waxaanu leenahay isdajiya idinka laftigeenu iyo fudayd ha sameeynina umada kalena waxaanu leenahay hal la arko xumaanta cid sameynaysa in gurigiisa inta loogu tagay leeyahay soo dhaaf inuu dagaalamo xaq buu leeyahay inuu iska celiyo xaq buu leeyahay hal laga noqdo go'aanka hal laga noqdo ciidamaduna dib uga baxaan wixii inta dheerna jawaabteeda iska soo bixi doontaa. Assalaamu calaykum.